noocan u wanaagsan daawadayaal meel kasta dunida iska joogtaan waa mar kale iyo lafagurkii barnaamijka ciyaaraha oo aan ku eegi doono ciyaartii xamaasadda lahayd xalito leh u dhaxaysay kooxda Liverpool iyo kooxda Bayern Munich waxyaabihii la record gareeyay ama waxyaabihii la diiwaan galiyay habeenka ciyaartaas ayaan eegi doonaa oo afar qodob oo aad u xiiso badan waa markii saddexaad ee taariikhda UEFA Champions League waa markii saddexaad oo afar kooxood oo ka socda dalka Ingiriiska ay ka qayb galaan markii ugu horeysay waxay ahayd 2007 ilaa 2008 2008 ilaa 2009 oo markii labaad ah 2018 ilaa 2019 oo ah markii saddexaad afar kooxood ayaa ka soo qayb galay wareegii sideedaad ee Champions League oo ay ka mid yihiin kooxda Liverpool, Man City, Manchester United iyo kooxda Tottenham runtii waa markii saddexaad waxa la soo oran karaa Ingiriiska waa soo qaatay doorkan oo waxa uu wataa dhiirigelin aad u xoogan qodobka labaad waxa weeye ciyaaryahanka Van Dijk oo dhashay dalka Holland ayaa waxa uu dhaliyay goolkiisa ugu horeeyay kooxda Liverpool ee waliba horyaalka Champions League isagoo saftay 19 kulan waa ciyaaryahanka Van Dijk oo dhaliyay goolkii labaad xalito kooxda Liverpool oo dhaliyay qodobka saddexaad waxa weeyaan ciyaaryahanka ama goolhayaha kooxda Bayern Munich waa Neuer ayaa noqday ciyaaryahankii 8 ee Champions League gaadha kulankiisii boqolaad marka xagga gooloodayaasha loo eegana waxa weeyaan waa gooladaha lixaad isagoo ay ka horeeyaan gooladaha Iker Casillas, Buffon, Victor Valdes iyo gooladaha la yiraahdo Peter Cech isaguna uu noqonayo gooladaha lixaad oo Neuer ah qodobka afraad aan eegi doonaa waxa weeyaan Liverpool ayaa markii 15aad u soo baxday wareegga sideedaad waa kooxda Liverpool waa markii 15aad ay taariikhda kubadda cagta diiwaan gashantay inay u soo wareegto wareegga sideedaad qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan kooxda Bayern ayaa waxa laga adkaaday 7 jeer oo isku xigta horyaalka Yurub Champions League waliba wareegyada 16aad waa kooxda Bayern Munich 7 jeer oo isku xigta ayaa kooxda Bayern Munich ay xasuusiyo 2013 kooxda Borussia Dortmund ay ka qaadisay koobka Champions League final waliba lagu ciyaaray garoonka Wembley marka runtii kooxda Bayern Munich waxa haysata caqabad aad u xoogan kooxda Liverpoolna waa socotaa ciyaaraantii Mane ayaa wacdar cajaa'ib soo bandhigay xalito oo runtii dhammaan macashaqinta kubadda cagta soo jiidatay waxaan eegi doonaa bal Mane saameyn inta leeg xoogan ayuu ku yeeshay kooxda Liverpool runtii Mohamed Salah isaga wali imika wax gool ah muu dhalin lugtii hore iyo lugtii xalito laakiin waxa uu sameeyay fursad cajaa'ib ah Van Dijkna mudafacyaanka ugu wanaagsan waqti xaadirka hadad maqal jirtay Twenty hadad maqal jirtay Cannavaro hadad maqal jirtay Lucio imika waqtigan waxa taliya oo xaadir u ah hogaamiye difaaceed leh waan kala raado Van Dijk runtii dhammaan macashaqinta kubadda cagta oo dhan way soo jiidatay dhammaan saxaafadaha kubadda